ugu dhawaaqay dawladda Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya ayaana si cad u shaaciyay inaan la aqbali karin qoryaha waaweyn ee gawaarida saaran kuwaas oo dhex mushaaxaya gobolka Banaadir. Ma aqbalayno dhashiikayaal in lagu wato magaalada Muqdisho. Waxaan idin sheegayaa go'aanka ay soo saareen golaha wasiirada oo ay ku jirtay inaan qofna wada karin in ka badan 4 aake iyo 2 baawur in shaqadiisi maanta ay bilaabatay lana bilaabay qoryo waaweyn in laga aruuriyo magaalada. Si marka hawshaas iyada ah ay u socoto waxaan idin ka codsanayaa inaad adkaysataan wax yar nagala shaqeysaan isbeddelka dawladnimo oo muuqda. Golaha wasiirada ayaa qorshahooda ku aadan dhanka ammaanka waxay ku gorfeeyeen sidii magaaladan ammaan ay u heli lahayd. Wasiirka warfaafinta ayaana aaminsan haddii hubka la aruuriyo oo ciidamada xiriir la geeyo in Muqdisho ay noqon doonto xilligii 70meeyadii ammaankii ay lahayd oo kale. Habkii qoryaha waaweyn iyo ciidanka oo muxuu ahaa militariga xerooyinka loo geyn lahaa qorshayaasha socda. qorshayaashaas markii hergalaalna waxaa arki doontaan magaaladan oo runtii muxuu ahaa aan qori weyn lagu wadan karin ciidan military oo aan hawl ku jirin inaysan ka howlgeli karin. ujeedada loo sameynayna wax kale ma aha maanta magaalada dhexdeeda ciidan al-shabaab oo joogo ciidankii foolka fool ula dagaalay ma jiro, marka sababo loogu baahdo hubkaas ma jiro. iyo shacabkii oo runtii u arkay hubkan lagu wato magaalada oo tirada badan in uu dhankii muxuu ahaa aaminaadda amniga iyo inay u arkeen inaysan muxuu ku habbooneen. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhankiisa ka hadlay qorshaha xasilinta gobolka Banaadir isagoo sheegay qorshuhu inuu yahay mid wanaagsan balse laga fiirsado qaabka loo marayo. qorshaha xasilinta magaalada Muqdisho baryahan dawladdu ay ku dhaqaaqday marka ugu horeysa ereyga xasilin haddaan ka soo qaadno iyo soo celinta amniga waa wax aad maatay runtii dadka Soomaaliyeed la filayo inay soo jiidato waxqabadkana sidii loogu talagalay hadduu u meel maro ay noqon doonto iyadana mid sidaas oo kale dadka Soomaaliyeed ay bogaadiyaan ama ay mahadiyaan. balse wax waliba marka lagu dhaqaaqayo qorshe ahaan waa aad iyo aad loo fiiriyaa qorshuhu ma mid dhowba ma mid dhaxba oo soconayo maartay muddadiisu mise waa qorshe fog ee lagu tagi doono dhammaan gobolada dalka oo dhan. marka Muqdisho caasimadii in lagu bilaabo iyada marka ugu horeyso qaab oo xasilin iyo nabad soo celin iyo qaab ma aragtay lagu gaarayo dadka Soomaaliyeed inay ku adeegtaan howlahooda ay ku qabsadaan ku seexdaan ku soo toosaan si nabad ah waa arrin aad runtiisan ku sheegay mar waliba soo dhaweynteeda ay mudan tahay. markii qorshahani uu bilowday hubka dhigista ayaa waxaa jiray hadallo ka imaanaya qeybaha bulshada waxaana inta badan dadku ay soo dhaweeyeen in hubka dhigistan la sii dhaqan geliyo iyagoo codsaday in hubka laga qaado qeybaha bulshada ee aan dawladda lug ku lahayn. waxayna sidoo kale sheegeen in xasilinta ammaanka magaalada Muqdisho uu yahay mid soo celin kara ammaankii magaaladan isla markaana nolosha sare u qaadi kara. runtii barnaamijka xasilinta gobolka Banaadir amnigiisa waa mid waajib ku ah qof kasta oo muwaadin ah oo Soomaali ah inuu gacan ka geysto. wadanka kan wuxuu soo maray dib fara badan waxa ku jira hub aan caadi ahayn oo keeni kara khalkhalka iyo nabad ku wada noolaanshaha dadka degan caasimada dalka. saadaradeed anigoo ku hadlaaya magaca ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed iyo dhammaan magaca haweenweynaha Soomaaliyeed waxaan soo dhaweynaynaa hubka dhigista sharci darrada dadka ku haysta hubka in hubka laga dhigo kuwa sharciga ku haysta laftigoodana waqti aan munaasib ahayn iyo meel aan munaasib ahayn aan lagu arkin. waayo dawladnimada iyo sharciga iyo kala dambeynta ayaa dadka deeqda taasaa lagu gaari karaa horumar taasaan wax ku qabsan karnaa laakiin in qof waliba
hub deegta saarto waxa uu socdana una garanaynin waxa uu ku bixinayo una garanaynin waa waxa maanta meesha aan naalalna dhigay haweenka Soomaaliyeed hormuud bay ka yihiin nabadaynta dalka xasilinta dalka hubdhigista dawladdu ay soo saartay go'aankeeda ee gobolka Banaadir laga sameynayana waxaan u arkaynaa wax runtii aad iyo aad aayaha dawladnimada iyo ummadda Soomaaliyeed wax weyn uga qaban doona haddana haweenkuna waa taageersanahay waana la shaqaynaynaa waana ka qayb galaynaa waxaanan u sheegaynaa dadka hubka sharci darrada ku haysta magaalada walaalayaal dawladnimada iyo sharciga ayaa u baahan in la dhiso oo la adkeeyo laakiin in qof walba oo Soomaali uu hub haysto looma baahna dawladda ayaa sugaysa amniga wallahi horta salaad xilligeeda la dukadaa waxa weeyaan horta laba isma anfacayso in nabadgelyo la sugo in qoral la iska qaato oo maaragtay sharci darra ma anfacayso waa in la xaqiijiyaa in la helo ammaan in la helo mataqaanaa wax maaragtay oo lagu kalsoon yahay dawladduna waxay yacni maamuli kartaa xasiloonida haddii la helo dadka haddaan xasilooni jirin maamul ma soconayo marka waa sax in la qaadaa hubka laakiin waa midkee waa hubka la qaadaya waa midka sharci darrada ah laakiin midka ninka ciidanka oo garabka ugu jiro ka diiwaan gashan ama mataqaana military ama ciidanka mas'uuliyadda ama ana saado waxa weeye maaragtay ma ahayn markaas in la qaado ma waa sababta wax ka imaanaya maaragtay waxaan noo bilaabmay iftiin waxaan arkaynaa nuur marka qofkii diidaya in hub laga qaado ma aha qof dawladnimo u baahan annaga haweenka haddaan nahay waxa u baahannahay dawladnimo waxaan ka soo dharagnay hub nin walba uu sito dawladdiina inay hub sidato qof shakhsi ahna uu sito hub iyo baroono iyo adduunyo hadda yaa dawlad ah yaa shacab ah waa in shacabku ay isku aaminaan dawladooda la shaqeeyaan raacaan amaawiirta waa inaynu u hoggaansanaa qorshaha dawladda qorshaha madaxdeena qorshaha qaranka dawlad aan shicib lahayn aan ciidan lahayn aan amnigeedu sugnayn dawlad ma noqono dal aan dawlad aan shicib lahayna kama baxo dawarsi iyo tuugsasho iyo gacan hoorsi dawladda shisheeye waxa aynan ku qasbaya inaynu gacanaha hoorsano dawladda shisheeye gacanaha hoorsanana waa hubka aynu gacanaha ku wadanay ku leynayno caruurteena haweenkeena odayaasheena aynu ku dhamaynayno way haweenku mar walba waxay dadaal xoogan ugu jiraan sidii ay magaaladani u noqon lahayd mid nabdoon ha ku tilmaamaan murti iyo siyaabo kaleba calanka miriro hoobay waayeen mirirka laga rogaa raggeenow nabadda doohon oo dagaalka dhiga waraggeenow nabadda doohon oo hubka iska dhiga haraynu leenahay dhul hoos looydu hogtaan hareeriya waxaynu leenahay canjeel harwayn oo dawladuhu waxayan helihin baynu haysanaa oo dawladuhu waxayan helihin baynu haysanaa ee dawladnimo waa u baahanayna hawsha waada badeennoo dahaba durduhurkeenna oo wahdeeya silqayiyo tabadin badeeheenna waxaa